ka lagu qalay bisinka alle macnaha magaca alle lagu qalay magaca alle wixii lagu qalay mafhuumul mukhalafadu wuxuu yahay marka wixii magaca alle aan lagu qalin inaan la cunin wey ilaa wuxuu subhana fakulu cuna mimma ki cuna dukira ismullahi ilahi magaciisa lagu sheegay alayhi korkiisa alayhi ay ala dabhiya loola jeeda wixii markii la gowracay magaca alle lagu sheegay kaas cuna kaas aynin banaan in kuntum wahdatin mu'minina kuwa rumaysan bi ayati ilahi ayatkiisa wax magaca alle lagu qalay haka shakinin ta ilahi rumaysan ta qof muslima qalay magaca allah lagu qalay waxa la anaga kooxdaydu ma qalin takfiirku ma ogol cuni maayaan waxaas magaca alle lagu qaladan ma cunaayo ilaahi waxa dhici karta taariikh salaad inuu qalo waxaan malaynaynaa mid mushriga inuu qalay yaa ku sheegay hatta inaysan nimankaasu diintan islaamka u diinahayn hal shay fiiri mid kamida soo qabo waxa tira dhageyso hadda koor waxaan aan ahaado hadda iga dhageyso tawxiid la ilaha illa allah muhammadur rasulullah hay waa qalay fiiri hay wuxuu kulay macuna maxay la asay agtiisa ma lagu islaam la ilaha illa muhammadur rasulullah taasad alhamdulillah wa naga ithbaatinay في عد أيضا علم المسجد كالكاس وكاليو تاغيان كإثباتين لا إله إلا محمد رسول الله كون قرضاتي هذا كو إسلامي الأكتيس مرك حاول مرينا إذا ميت كم عن روحه قال يهرت هذا كذر كيف اسكده مرك إلهي وإن وحده فكلوا عنا مما كيدو ذكر اسم الله إلهي مجعي صلوه الشيء عليه على ذبح لقور عديسة إن كنتم ذات مؤمنين ضطروا ما يسمى بآيات إلهي آيات كيسة وما لكم محايني سوناضي تنونا وحويان وأرين تأكيد يعدكين مسألة لسي عدكين أوي وما لكم محايني سوناضي ألا تأكلوا إن أطنان حنين مما كيدو كرسم الله إليه مجعي صلوه الشيء عليه على ذبح لقور عديسة والحال محايني كو سوناضي إن أطنان حنين محايني تسارت إنكو حنباري كرتا إن أطنان حنين قد فصل لكم الله إنك صاري ما كي حرم حرم تنمي عليكم كركين وكحرم تنمي إلا ما الذي كما هني أضررتم إليه لينين دبا تجري وآيات إسلا سورة دانكو إيمانا يدي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على ضاعم يطعمه إلى آخر الآية تاسوي آيات دا سألوك العدي ما هن آيات كسورة المائدة يا بقرة إنما حرم عليكم ميتة كواس ما حيلا كواس وركضن بيان سورة دان سورة آيات دان آيات دي كوا حويلة وآيات مكية الآيات دان مكية آيات مكية هالغشيك وانا آيات دانوي حتى مدى سورة النحل ما ومد دان قل لا أجدوي تاسوي مركا وقد فصل لكم لبقر أوي إن مصمم لكم لقد واقع وقد فصل لكم ما حرم الله في علم إيا الله إن مجول لقد واقع وقد فصل لكم ما حرم عليكم والله بقر إلا ما ضررتم استثنوه ومقدر إلا ما ضررتم إليه لكن ما ضررتم إليه شيء لينين إذا تقدر يكون الحرام تنميه فإنه يباح لكم حتى شيء الله حرمي او بقتي كميد يحي حدي ضروره اي تماد والين حلالين او سغلر تركيس والين حلالين الى وحور سبحانه وان كثيرا ان بدن لا يضلون ويباديين الناس مفعولك الحذف قراءه لا يضلون ايغا باديوبه ايغا باديوبه maxay ku baadiyeen ayaguna ku baadiyoobayaan biahwaa'ihim rabitaanadooda maxay tar rabitaanada waa ahkaamta rabitaanka ku dhisan waxaas way ila fiican yahay sharciyan ka dhigan waxaas waa xalaal haw daliil ee laga maaro banu aadanka u baahan hawow waxaan waa ila fiican waxaas waa xaraam maxaa u daliila aqligaaba diida ما تاسو وطريقه المشركين وحياله اسك حرام تنبي جيرين او ان دليل لهين سو ما جيديد وحياله ان الهي امرين
oo ayagu ay iska xaran waxaas waa xaram neefka noocaas lama cuno xayala oo runtii aad looga naxaa Soomaalida xataa caadooyinkooda gobol soo gala laftaas anaga ma cuno anaga ma jabina laftaas dhuuxeed qaarkood waaga hor waxay dhigeen waa caabudnaa laftaas anaga waa caabudna inna lillahi wa inna ilayhi bal qof laf caabudaya halkuu jooga everyone laakiin hadda alxamdulillah waxaan isleeyahay ogaa taas waa soo yara laakiin wali waa baaqi laf ma cuno tagoogta ma cuno ma jabina anaga tagoogta shanshada ma jabin waa ka caagana wadnaha ma cuno xibinta ilaa ma cuno xurun sharci kuma dhisay haway ku dhisantay Soomahan taas way ayad waxay ka hadlay taas waa dariiqa xaraan ah oo banaanayn waa dariiqadii mushrikiinta kale hay kalot ina tiraado laf xalaal ah dhuuxeedo subag ka buuxo ma jabin maxaad ku xarimta waa caado waa dariiqadii mushrikiinta ma banaana taas ما بنانا وإن كثيرا إن بدن لا يضلون الناس بدكي أي بعضيين أيام ما حيكو بعضيين بأهوائي رابطان ندو لما وحلا من القوانين تا أو وحوين لودتي أمضاها أو شرعك إلهي وافق سنة وهو حيكلت والله فريسانا هاي شايقاس وبناي شايقاس سواجي شيء هو حرام شيء سيدا سليله قف دنبغاس كلا انتاس لو عقابه حاو دليل ما في يقام دليل ما يقان هذا شيء دليل سومتي وعام مكاسو كشقينا حلال يا حرام وهو هي كلط marka waa baadiyeen ummadii la baadiyeenaw ila wuxuu subhana bi ghayri ilmin aqoon laan xalay ku dhisan yihiin oo ay ku sugayeen bi ghayri ilmi ghayrkiis xalay ku sugayeen ayay dadka baadiyeynayaan inna rabbaka huwa rabbiga a'lamu isaga u ogaal badan bil mu'tadiin dadka xuduud alle ka gudba oo wax ilaahay xalaaleeyay xaraam ka dhiga wax ilaahay xarimay xalaal ka dhiga sharciga ilaahay sharciyan ahayn dejina mu'tadiinta xuduud alle ka gudubtay adoomay ahaayeen sifar rabbinimo sheegtay ilaahay waa og yawaan abaal marina waa waciid وعيد درو سو بجد اسم تفضيل كعبر مركل إن مفعول كيسي بعد يلقلش هو أعلم بالمعتدين إلهي كو واحد قد بي أساقا هو قال بلا أساقا مركا كعبال مرينا يوي داتر هذا وحبان حلالين وحنوا حرما وحكا جي واكد قدبتي سفر رب النمات شيئا نيسا فكلوا هنا مما كيدو كي رسم الله مقع عليه لغو شيئا عليه على دفع لقور عديسة إن كنتم أداتين مؤمنين ضدهم يسن بآيات الله آيات كيسة وما لكم محائن سنعضي ألا تاكلوا إن أطنان عنين مما كيدو كرسم الله إلهي مجعي صلو الشيغي عليه على دفع لقور عديسة والحال محائن كقو سنعضي إن أطنان عنين قد فصل لكم ألا إنين كالصاري ما كي حرمه كحرمتني عليكم كركين إلا ما ضررتم إلا ما الذي كما هني اضررتم إليه لينين دباتك لي وإن كثيرا إنبضا لا يضلون بدكي باديين بأهوائهم ربطان ندوذا إيا جعيل كودا وحا يجعليهين أي دادك كباديين وحا يجعليهين أي دادك كباديين بغير علم لأن حال أي كسوغيهين أي دادك باديين إن ربك هو ربك أعلم وسقا وقوم بضان بالمعتدين دادك حدودك كقدبي أسقانا أبال ماي وذروس كغات تغددو ظاهر الإثم دنبك كيسا موقدا إيا وباطنه كيسا قرصان إن الذين دادك يكسبون شقيسانا الإثم الدنبك سيجزون والغو أبال مريضونا بما وحي كانوا أيها يقترفونك وشقيستا دنوب توالبو دنوب موقتا وقفكي أسابه اللو تشيدو إلهي عاصنا سنبكي عابدا يدو اللو تشيدو سجودا dadkii u dhacaho dileeho dariiqa u taagan yahay zinada iyo tumashada wuxuu u aada gooba aan loo jeedo waa dunuub muuqata qamradii ada ayadoo loo jeedo dunuubna waa dunuub dadku qarsadaan hoosu qolka mugdiga ah makriga ka maleega balaayada halkaas uu ka maleega
halkaasuu shayaadiinta ka soo dira kuwa dadka dilaya kuwa dadka dhacaya kuwa zinada faafina kuwa shirkiga faafina min waraa'i sataaru ka shaqayna zinada qof ay heshiiyeen laba qof ay isla dhuumeen wax muuqda maya hadduu daroodo isticmaala waa qarsana dunuut waa labadaas marka ilaahay wuxuu leeyahay labadaba iskaga tag maxaa yeelay rabbi waa iskugu mid banu aadanka ayaa qaarna u muuqda qaarna ka qarsooy ee rabbi waa iskugu mid isku si uu ugu jeeda wadaruu ka taga daahira al-ithmi dembiga kiisa muuqda iyo wa baatinahu kiisa qarsoon iskaga taga ahlucilmiga gabal waxay yidhaahdeen daahirka waa zinada oo waxa weeyaan goobaha zinada loo aado daahirka wa baatinahuna waa labo si gaara iskula dhuumata laba si gaar iyo aqwaal kale laakiin sida xaafidku yidhi aayaddu waa caam kama hadlayda zine kaliya waa dembigii qofku muujisto iyo midku qarsado waxa weeyaan dadka waa hadba heerka uu joogo mar waxaa dhacda qofku dembiga uu dadka ka qarsana marna inta gaangastur noqduu dabadda la soo fariisaa degdigaas inta fariisto uu zinada iyo qurunka iyo akhlaaq xumada iyo muuqaalada shaydaanu ku daawana derbigu iskala fariisana ma xishoonay marna sariirtu inta bustaa lowdu hoos ka fiirina labada marka ilaahay intiis waa iskaga mid labada waa iskaga mid iska daay balaayada aad hoos u fiiraydaan iyo balada aad kor u fiiraydaan iska daay labadooda wadaruu ka taga daahira al-ithmi dembiga kiisa muuqda iyo wa baatinahu kiisa qarsoon ina aladiina dadka yaksibuuna shaqaysana al-ithma dembiga sayujzawna waxaa lagu abaalmari doonaa bimaa wixii kaanuu ay ahayn yaqtarifuuna kuwa shaqaysta fiiri dadka xumaanta samayna ama qarso ama muuji cidda ku abaalmarina waa alle maahan addoommada qof walba xumaan samayna ilahay ballan u qaado inuu ku abaalmarin ina aladiina dadka yaksibuuna shaqaysana al-ithma dembiga sayujzawna waa lagu abaalmari doonaa bimaa wixii kaanuu ay ahayeen yaqtarifuuna kuwa shaqaysta wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalama wbaaraka cala nabiyina muxamed